kulanto wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaad waxaan rabaa inaan idin la wadaago xogta dagaal culus oo caawa ka socda magaalada Laascaanood gaar ahaan deegaanka Gooja Cadde waxaa maalmihii la soo dhaafay isku fadhiyay ciidamo ka kala tirsan maamulka Somaliland iyo maamulka SSC Qaatumo caawa waxaa la soo sheegayaa in halkaas dagaal culus ku qarxay oo u dhaxeeya maamulka Somaliland iyo maamulka SSC Qaatumo xogtaas ayaan rabaa inaan idin la wadaago dagaalkaas iyo wixii ka soo kordhay khasaaraha dhimashadii dhaawac halkaas ka jiro haddii ay tahay markii ugu horeysay soo booqanayso waxay ka codsanayaan subscribe ila channelka like iyo share gareeysid si aan u helo saaxiibadiga kale aad iyo aad maasan tahay dagaal culus ayaa caawa laga soo sheegayaa inuu ka qarxay magaalada Laascaanood gaar ahaan deegaanka Gooja Cadde maalmihii la soo dhaafay waxaa isku fadhiyay ciidamo ka kala tirsan kuwa Somaliland iyo maamulka SSC Qaatumo dagaalkan culus ayaa imaanaya kadib markii maamulka Somaliland maalmihii la soo dhaafay ay soo saarayaan jawaabo ka dhan ah in magaalada Laascaanood ay duqeyn doonaan duqeynta Somaliland Laascaanood ay sidoo kale waxay imaanaysaa kadib markii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre uu shaaciyay in magaalada Laascaanood uu booqanayo Somaliland waxay soo saartay digniino ku aadan in ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uusan booqan karin magaalada Laascaanood ee gobolka Sool sida ay Somaliland weli ku andacoonayso waxay sheeganaysaa in magaalada Laascaanood ay tahay qayb ka mid ah maamulka Somaliland balse SSC Qaatumo ama magaalada Laascaanood waxaa hadda loo aqoonsaday gobol ka mid ah gobolada Soomaaliya lehna maamul iyaga u gooni ah dowladda Soomaaliya ayaa waxay u aqoonsatay maamul gooni u taagan kana madax banaan Somaliland inteeda kale balse Somaliland hadalkaasi kumaysan qancin weynay diidan tahay in maamulka SSC Qaatumo uu yahay maamul ka madax banaan magaalada Laascaanood ay tahay magaalo ka tirsan maamulka Somaliland dagaalkan culus sidoo kale tacaaw halkaas ka qarxay waxa uu imaanayaa kadib markii maalmihii la soo dhaafay sidoo kale Somaliland hanjabaado ka dhan in magaalada Laascaanood ay duqeymo culus ka geysan doonaan ay soo saarayeen balse ugu dambeyn caawa halkaas waxaa ka qarxay dagaal culus oo u dhaxeeya labada dhinac waxaan la soo sheegayaa in halkaas wada uu ka socdo dagaal culus oo labada dhinac ah sidoo kale waxaa jira khasaare dhimasho dhaawac oo labada dhinac soo kala gaaray waxaana sida la soo warinayay ama xogaha halkaas ka imaanaya ay sheegayaan ay xaqiijinayaan in jab culus lagu gaarsiiyay ciidanka maamulka Somaliland oo iyaga markii horeba halkaasi weerarka ku soo qaaday ilaa hadda waxaa socda dagaal culus oo u dhaxeeya labada dhinac waxaan la isku adeegsanay hubka noocyadiisa kala duwan sida ila dadka deegaanka kamid ah oo halkaasi jooga ay noo sheegay waxay noo xaqiijiyeen in halkaasi caawa dagaalka uu ka socdo uu yahay dagaal culus sidoo kale waxaa la warinayaa in ilaalada ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre shalay ka degay magaalada Laascaanood ee qayb ka yihiin caawa dagaalka ka socda magaalada Laascaanood ee gobolka Sool gaar ahaan deegaanka Gooja Cadde shalay ilaa maanta waxaa magaalada Laascaanood guud ahaan amnigeeda la wareegay ciidamada ilaalada gaarka ah ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre maadaama halkaas iyaga goor sii horeysay ay ka degeen ayna xaqiijinayeen amniga guud ee magaalada Laascaanood maadaama ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre halkaas uu ku wajahnaa balse ugu dambeyn caawa halkaas dagaal ay ka qarxay ciidanka ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre ilaalada gaarka ah isaga ka sii horeeyay halkaas goor sii horeysay tagayna waxay qayb ka yihiin dagaalka caawa ka socda deegaanka Gooja Cadde ee magaalada Laascaanood waxay hore u martigelisay dagaal culus oo u dhaxeeyay maamulka Somaliland iyo kuwa dadka deegaanka SSC Qaatumo oo hadda iyaga noqday maamul gooni u taagan balse ugu dambeyn halyeeyadii u dhashay magaalada Laascaanood ayaa ka difaacday Somaliland halkaas waxaana ugu dambeyn SSC Qaatumo ay noqotay maamul ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya maamulada hoos yimaada si kastaba dagaal culus ayaa hadda ka socdo waxaana jira khasaare dhimasho dhaawac oo labada dhinac soo kala gaaray balse sida xogaha qaar ay warinayaan waxay sheegayaan in dagaalkan caawa khasaarihiisa ugu badan la gaarsiiyay maamulka Somaliland iyaga markii hore weerarka soo qaaday dagaalkan wuxuu ku soo beegmaya xilli ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu la rajeynayo inuu booqdo magaalada Laascaanood saacadaha soo socdo balse lama oga in ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre safarkiisa dib uu dhigi doono iyo in halkaasi ku adkeysanayo inuu weli ka dego maadaama dagaal culus caaw halkaasi ka qarxay wixii war ka soo kordhay dagaalkan culus ee safarka ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre adiga ayaa noqon doona qofka ugu horeeya daawada haddii ay tahay markaa soo booqato waxaan ka codsanayaa inaad subscribe ila channelka like iyo share gareeysid aad iyo aad maasan tahay